haweeney ayaa maalin walba waxay u dubi jirtay qoyskeeda rooti. Markii ay shaqada dhammayso, xabad rooti ayay daaqadda saartaa si uu qaato qof baahan oo bannaanka maraya. Maalin walba waxaa daaqadda soo mara nin waayeel ah oo qaata rootiga ay saartay haweeneyda. intii uu ixtiraam u muujin lahaa dadka degan guriga waxa uu dhahaa kuna celceliyaa sharta aad samaynayso adiga ayay kula joogaysaa, wanaagga aad samaynaysana adiga ayuu kugu soo laabanaa. maalin walba haweeneyda daaqadda ayay rootiga saartaa, ninka waayeelka ah ayaana maalin walba ka qaata rootiga, isagoona ku celcelinaya sharta aad samaynayso adiga ayay kula joogaysaa, wanaagga aad samaynaysana adiga ayuu kugu soo laabanaa. haweeneydii ciriiri ayay dareentay, ninkan maalin walba aad wanaagga u samaynayso haddana aan ixtiraamka muujinin waa maxay? waxa ay bilowday inay isla hadasho. maalin walba ayuu halkan soo maraa ninkan, hadalkan ayuuna ku celcelinayaa, bal muxuu kala jeedaa? maalin maalmaha ka mid ah shaydaan ayaa u sheekeeyey, waxayna tidhi horta waa inaan ninkan dilaa. rootigii ayay sun ugu dartay. marka ay daaqadda sii saaraysay culays ayay dareentay. maanta maxaad samaynaysaa? ma inaad qof bini'aadama dishaa rabtaa? way ka laabatay ra'yigeedii hore, rootigii sunta lahaa dabka ayay ku tuurtay, mid aan sun lahayn ayay samaysay, daaqadda ayayna saartay si uu qaato ninkii waayeelka ahaa. ninkii rootigii ayuu qaatay isagoo ku celcelinaya hadalkii, waana iska tegey. maalin walbana haweeneyda sadaqa ayay bixisaa, iyadoona allah ka baryaysa inuu u soo celiyo wiilkeeda oo muddo ka maqnaa, meelna aysan ku sheegin. maalintaa ay damacday inay ninka sumayso laakiin ay ka laabatay, albaabka ayaa loo soo gargaraacay. markii ay furtay albaabka waxaaba taagan wiilkeedii oo muddada ka maqnaa, daruuf saa'idana ay ka muuqato, aadna u baahan. markii ay aragtay laabta ayay ku qabatay, iyadoona allah u mahad celinaysa. waxa uuna ku yidhi, hooyo allah ayaa mahadle i kaa tusay, masaafo aad u dheer ayaan soo lugeeyey, wax cunto ahna maanan cunin, waxaan ku dhowaa in aan geeriyoodo. haddii aan allah i tusi lahayn nin waayeel ah, waxaan weyddiistay inuu cunto i siiyo. aad ayuu u wanaagsanaa ninka, rooti dhammaystiran ayuu i siiyey. waxauna igu yidhi, kani waa cuntadayda maalinkii, laakiin adiga ayaa iiga baahi badan ee cun. markii ay maqashay haweeneydii hadalka, wejigeeda cabsi ayaa ka soo muuqatay, waxayna soo xasuusatay rootigii sumaysnaa ee maanta samaysay. haddii aysan dabka ku tuuri lahayn, wiilkeeda ayaa cuni lahaa, sidaa ayuuna nolosha ku weyn lahaa. waxayna garatay hadalka uu ku celcelinayay ninkii waayeelka ahaa waxa uu kala jeeday. sharta aad samaynayso adiga ayay kula joogaysaa, wanaagga aad samaynaysana adiga ayuu kugu soo laabanaa. samay khayrka oo ha ka caajisin intaad awooddo, haddii xitaa aan lagugu qadarinayn, maalin maalmaha ka mid ah ayaa allah ka abaalmarin doonaa, adduun ama aakhiro. la wadaag asxaabtaada, waadna ku mahadsan tahay. haddii aad ku cusub tahana janalka maanta, sabskrayb dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub.